waxaa magaalada Baydhabo ka qabsoomay munaasabad ay ku qalin bedelanayeen qaar ka tirsan ardayda wax ka barata iskuulka Baydhabo Medical. Xafladan oo si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa qayb ka ahaa dadkii ka soo qayb galay macallimiinta jaamacadaha magaalada Baydhabo, madax ka tirsan wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed, gudoomiyaha midowga nidaamka iskuulaadka magaalada Baydhabo iyo madaxa suuqgeynta shirkadda isgaarsiinta Hormuud iyo waalidiintii dhalay ardayda maanta qalin jibisay oo tiradoodu ka badneed 150 arday. Dufcadan ka qalin jibisay BMI ayaa ah dufcadii sagaalaad. Qaar ka tirsan ardaydii ka qalin jibisay iskuulka BMI oo maanta la guddoonsiiyay shahaadooyinkooda ayaa soo bandhigay eray ay ku ammaanayaan iskuulka Baydhabo Medical. magaca BMI markaan dheegi farxay farnaaga foolku qaaday filimada ka min lagtay faanfaan faaji bilaawi baleeda magaalada bergo BMI bulsho ogaada bilabati bood maqariya BMI saasoo kale waa bulsho ogaada BMI bilabatay banaanta alwa bilday diskifida bartismaadwa bulidmar saabadinka nuuriyaba boolku kala soo barakaysan beeday ma bartwal barashada waa Google ko ay buujiteen. Sidoo kale xafladan inta ay socotay ayaa waxaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay oo dhanka waxbarashada maamulaha iskuulka BMI Maxamed Deeq Mukhtaar asagoo ka warbixiyay xaaladaha adag ay soo mareen ardaydan muddada ay ku guda jireen waxbarashadooda. ما شاء الله إذا كفرح سنة دليرة إسكمركاسي وجياش وقرح بدن أو مدود حصبرين هدور عليهم حل جوابي كلها لتيو بها كدف كصبرين أنت جاي كفدينا ما شاء الله ميسي لا حنبليو عرض مدول برضو إذا بدنت نيبوا أسيد درهم مكرة مرحلة إسكمركاس والبرضو وسؤال درهم والد شيء كده درهم مرحلة دي عقبادين إسكمركاسي نقطة عقبات دغال نقطة عقبات إسكمركاس أرديس والبرادو صحيح برسنالها أرديس إسكمركاس جيك هم وذا صورتي أو إسكمركاسي جهد جاسي ذلك سن وذا بيهم جيك مركاتين كلنا إن شاء الله أنتم شاهدون من قبل السنة حقيقي ما عندكم BMI مدة أمي بوا حقيقة تمن سنة يا سيفرينيا معكم جيك أرديهم دمايت إلى بقولي أفرتم أرديو صدق شمعو قبل إسكمركاسي ترى كلنا إلا يوم بقولي تمني هو دليرو إسكمركاسي دليرو هذا ما إسكجران إسكمركاسي أو لما يصير هالسنة إسكمركاسي أو general health أو إلا يو 11 subject بكون إسكمركاسي نحبردايان أو لغة إنجليش كنا كبردايان ومعك. inta ay socotay munaasabadan ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay madaxdii ka soo qayb gashay xafladan. aniga laftirkeygu maanta aad aan u faraxsanahay ma ahan markii ugu horeysay aan ka qayb qaato xaflad ay ku qalin bedelanayeen ardayda ka qalin jibinaysa ama ka qalin bedelanaysa macadka BMI maalinta masterka soo qaadatid wali waxa si rabtaa inaad noqotid doctor ama PhD inaad qaadatid maalinta PhD qaadatid waxa raadinaysaa inaad noqotid maaragtay inaad noqotid waxa raadinaysaa inaad noqotid professor wali ma dhowin marka albaabka irida ka joogtaan baabkii maaragtay cilmiga majaalka caafimaadka soo gasheen dardaarankii shalay aan siiyay maanta idinkana idin siinaya guriga si fiican u soo gala noqda ardayda ama dadka waxtarka u leh gobolka intaas kadib ardayda may fadayinaan geeka qandib almadalada haytaan wali walba dhamaanta badana jaamacada dhigto iyo intii wajiyada ka argahay may fadaanayna ilmiga wali koom roogtan lan bijibaar wal barashada wala wiinada maamulka wiinado may fadaanayna wal barashada si lan jibaar wala wal hormar wal barashada geeka lan wal baradi hormare lan wal baranayna meel sarooge xafladan oo surugna quruxda badan iyo ardaydan wujuhda iyo farxadda ku muuqata BMI maamul Sheekh Maxamed Deeq runtii eedan kama hadlagaan markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad meewan ku qayb galaana xaflad noocan heer sarana lahaan agaasimi runtii Maxamed Deeq may ka tilmaamo kornay hal doorada Koonfur Galbeed xaqiiqatan qofku wax qabad shay in la ka inkara ma in la muujiyo Maxamed Deeq juhdi badan iyo kuwada magaalada Baydhabo
marqaati aan ku eenna hadii uu midowga iskuul nidaamiga degmada Baydhabo ma marqaati ka haanay Maxamed Deeq wax soo saar badan inuu isugu haay waliba dhanka caafimaadka badanaatay gudoomiyaha waxbarashada degmada Baydhabo Yuusuf Maxamed Idriis ayaa sidoo kale ka hadlay munaasabadan qalin jebinta wuxuuna ardayda maanta dhameysatay kuliyadda caafimaadka kula dardaarmay dadaalkooda inay si laba jibaaraan anaga saabkay Maxamed Deeq waa laga marbalan hawada shaqeynay caafimaadkan waa leen muhiim ah waa wala bardo bulshada aan baahan waa ku dhawaad madalan fiiri ibta education marka la fiiriyo barnaamij ku la rabo basic education marka la rabo qofku ma ku bilaawdaas wala rabo home teaching masalan ABRS alternative basic education dadka inta khudbado ka jeedi qeyb kumada lam qof kumada maamulyaal oo wasaaradda waxbarashada iskuulada ka shaqeeya taas ogaada ugu dambeyntii ardaydan ayaa la guddoonsiiyay shahaadooyinka ay muddada ay waxbarashada ku jireen ay sugayeen waxaana warbaahinta la wadaageen dareenkooda sida uu yahay maanta faasta magacayma baleeray Maxamed Abdullaah Abshir eediyada aan ku faraxsano maadaama aan ka mid noqday ardayda shahaadada qaadaysa oo socotay muddo hal sano oo ka baradaan caafimaadka iskula general health qayb badan oo ka koobiya caafimaadka oo shahaada qaadayna geegi farxadina xaqooda kor leeyahay Iqraa Ali Maxamed Baydhabo Medical Institute BMI inta qalin jabiyad eedan ka faraxsana markuu koreeyay magacay leeyahay Shukri Maxamed Qaar ما leeyahay geeki eedan faraxsana meeban faraxsana ano ka qalan bedeladii caafimaad magacay leeyahay Abdirsaaq Maxamed Sheebay geeka shucuurtay ma koobo koro wayba geeka ku qalan jibinay masku qalan bedelanay shahaadada noosiyay Baydhabo Medical Institute ana OMI Abdirsaaq Maxamed Sheebay Khalid Abdi Ibrahim telefishinka caalamiga ee Daraawish TV magaalada Baydhabo Janay